habeenka waa uu dheeryahay mugdigana waa uu daran yahay laakiin mugdiga wax dhammaanaya waa islaamka waa astaanta koowaad ramadaankan waa wax la tirinayo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo nagu galladaystay waxaana loo baahan yahay hal mar in la wada ciido waxay doonayaan cadowga inta faraaruq dhexdeedna uu imaado tan waa baraarujin qof walba oo soonka uu ku waajibay lagu baraarujinayo waana camal qofka marka uu soonka dhammaysto kadib uu qabto xusuusintan waxay anfacaysaa dadka mu'miniinta marka soonka uu dhammaado lana arkana bisha soonfur waxaa ansaxayo ciidda waana xilli muslimiinta ay ku qaadaan takbiirta suuqyada masaajidada iyo goobaha la iskugu imaado iyagoo dhahayo Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar laa ilaaha illa Allah Allahu akbar walillaahi alhamd zakaatul fidriga waxay ku waajibaysaa qof walba oo soonka soo gaaray waxaana la bixiyaa 4 koombo oo badar ah haddii bariis uu yahay 2 kiilo iyo bar lacagna kuma baxdo zakaatul fidriga waxaa habboon in la bixiyo salaada ka hor waa salaada ciid waxaa wanaagsan maalinka ciidda qofka inuu xirto dhar cusub ayna iskugu hambalyaan muslimiinta taqabbal Allahu minna saalih al-a'maal waxaana wanaagsan in qofka timiro cuno salaada ka hor waxaana sunnah wadadii hore aad ka baxday maahay mid kale inaad ku soo laabato inta lagu guda jiro farxadda iyo dabaaldegga ciidda iska ilaaliya inaad salaantaan haweenka ajnabiga idinka ah kana ilaali inaad aadid meelaha lagu soo bandhigayo fantasiyada sida heesaha iyo wax la mid ah noqon mid akhlaaqdiisa ay ka wanaagsan tahay intii ramadaanka lagu dhex jiray ha noqon qof ramadaanka caabudo ee Allah subxaanahu wa tacaala caabud 6 maalmood ee laga soomayo bisha soonfur ee wadaca loo yaqaano qofka inuu isxijiyo ayaa wanaagsan laakiin dib kuma sugno haddii qofka 6 maalmood bishaas gudahooda uu ka soomo waxayna kaa kabi doontaa insha Allah wixii ramadaanka kaaga